الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن سن بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عشر كانوا كبل عظمية سورة الحجر بلوجيدة وانا السورة دي شنية طبناد بقولي أفرية طبنك سورة ضاد مركة تيرادة ودلايقو قرآن كما كاكسو الدقين ويا آياده هيدونا والسقالي السقاش waxyaabaha runtii suuraddu ay koobsatay haddii aynu siyaagno waxay shabbahaysaa suuratu lacraaf suuratu racadaynu soo dhaaf haddii ay shabbahaysay suuratu lancaam suuraddan xijrina suuratu lacraaf bay shabbahaysaa ilaa 5 arrimood bay koobsatay. awalan ilaahay waxa uu caddaynayaa in rusushan uu soo dirayay dee khalqiga ku qaybsamayo qolana rumaynaysay qolana ay beeninaysay بيان سنة الله في الرسالة الإيمان بها وعدم الإيمان بها رمينتي للرمينية إيا إن آية هيد رمين الآن بمتجرت والله وضع رموت بس ودعيه النبي قلنا أنا لك وسنين عليه الصلاة والسلام إذا المركا واسم برسين نبيقا آيات ككون قابا إلها وحصية سماء يدو لي بضب كترة إيا فوائد دا إليهين إيا أود دا إلها وكم موقنيسة أصل كيب الشريعة با مركا صدحات إلها وحصية والشريعة هلك إلهي وكأبوري وآدمي حاوة عداودي واللي تلصوا بلابي براروجين تاريخ هذا إلهي وديب النوغو علينيوي مركا أفراد وحي إلهي وشيغا يا الدنيا دا إيا آخرة بس دا وابال مرينيو دادك عدوغا إيا أمدي هوري الظالمين تاها سدو قبنشري مرشاناتك وحي إلهي وكورمي الدورة أحوال يوم المعاد مالنك الصوص عضا يبال حالوينكي صلياب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك تلك التنصص عتابو لهي آيات الكتاب كتابك آياته سوية وقرآن مبين قرآن واضحها عد آياته سوية ربما إن بدن بيود شعلان طونان الذين كفروا كوي قالوا بي لو كانوا مسلمين إن إلهي رمين لهايين ذرهم اسكدا كونا الدنيا جوغا يأكلوها عنين ويتمتعوا هنا راحيستين ويلههم الأمل يدي لذا بيانتا هنا هلو قويس فسوف يعلمون هدو بيوغان دونان بول هيدو حقانا حروف تامر كاسورة ده بلو قوضي ألف لام را فواتح صور كالله يدادو كتبها قاركودنا الحروف المقطعة أي كو شيغا متشابهة إنay tahay baynu soo meel dhignay oo aynu ku daynay macnahoodana ilaahay uu qaranayo hadii la fasirayana nabi maxamed baa fasiri lahaa calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay uu anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-naasi ma nuzila ilayhim quraanka waxaan kugu soo dejinay saa dadka ugu bayaamiso marka had iyo jeer erayadaas suurada ilaahay uu ku bilaabo waxa uu ku xigsiyaa quraankan kariimka ah oo uu ka warramayo mucjisnimadiisa iyo macnawiyaadka dheeraadka ah ee uu leeyahay marka taasi waxa ay muujinaysaa in ay tilmaamayaan erayadaasi quraanku inuu mucjiz yahay oo erayadani mar haday luqadii carbeed ku soo degaan cid fasirayso iyagina aanay jirin
dee waxaa halkaa ka cad mucjisnimada kalaamkan. aayadahan ilaahay uu tilmaamaya waa kuwan soo socda, haddana tilmaamidii ishaaradii baciidka ahayd baa ilaahay uu ku isticmaalay. marka macnuhu waxa weeye kuwa macnahooda uu sarreeyo, manhajiyadooda iyo qiimahooda uu nidaamyada kale ee bani aadamku uu keenaa aanay la mid ahayn. tilka aayaatulkitaab, aayadaha qaaliga ahay waa aayadihii kitaabku uu koobsaday. qur-aankan ilaahay meelo badan buu ku sifeeyaa inuu yahay qur-aan mubiina. waa ismi faacil mubiin, abaana oo mucaddaaiyo iyadoo laazima uu ka iman karaa. markaa waa mubiin, sidiisuu u cad yahay oo tanaaqud iyo wax takhaalufah iyo iska horimaad iyo macnihiisoo qarsooma iyo ma leh. ee qof wal oo luqada yaqaanaaba si quman buu u fahmayaa. weliba hadduu cid kale oo luqada ku hadlaysaa soo daliishado wuu ka dhex muuqanayaa qur-aanka kariimka ahi. waa mid iftiimaya wey. marka la eego waxa uu ka hadlayana mubiin buu yahay oo uu caddaynaya akhbaartii hore, arrimaha mustaqbalkee soo socda, nidaamka aynu isku xukumayno, intoo dhan wuu iftiiminaya, waadix buu ka dhigaya. haddaba dar aanu u muuqanin qur-aankaa mubiinka ahi oo ka indhabeelay oo ka dhegabeelo xawaastoodii ay ka xidhantay, xumaantoodii baa bal ilaahay oo halkan ka warramay, iyo wakti aanu waxba u anfacayn, murugada iyo qoomamadu oo ilaahay halkan uu kaga warramayo xaaladooda. rubamaa yawaddu aladiina kafaruu law kaanuu muslimiin. in badan bay gaaladu jeclaanayaan inay islaami lahaayeen daraarta qiyaamaha. oo sida xadiid marfuucoo dabaraani warinaya uu sheegayo, anas baa soo warinayeen, dadka ahlu naarka ahi markay naarta galaan ay dhacdo dadkii muslimiinta ahaana qaar ka mid ahoo dembiga laga dhaafi waayey naarta lagu soo dahirayo, way u faanayaan gaaladu oo waxay leeyihiin annagu laati iyo cuzi sanamyaashaasaanu caabudi jirnay, idinkuna ilaahay baa caabudayseen, maxaa laydinku cadaabay? soo innagaan isku midka noqonnay. fayaqdabu allaahu lahum, ilaahay baa dartoodu cadhoonaya markaa. dabeedna wuxuu ka soo saarayaa naarta dadkaa tawxiidka ku dhintay. waxa uu gelinayaa meel la ydhaah nahrulxayaa, webiga lagu soo noolaado. way soo biqlayaan sida xabadda hadhuudhka ahi ay usoo biqisho oo kale. intaa kadib kolka ay caafimaadaan, ay dad u egaadaan baa la geynayaa jannada. waktigaasay gaaladuna tamaniyayaan inay ilaahay rumayn lahaayeen, laakiin waa bacda fawaati l awaan, waktigii goor uu tegay weeye oo waxba aanay uga danahayn tamanigani. ilaahay waxau ihi kuwani ha cuneeno ha cabbeene da-o ha raaxaysteene, yididiiladoodana ha wadeen. tanoo kale hanjabaad baa la ydhaha fasax ilaahay xumaanta u fasaxaya maaha. halkaa ilaahay waxau inoogu tilmaamay in aanay ilaah iyo diin midnaba u jeedin iyo aakhiro midnaba. laakiin dee sidaynu imikaba ka arkayna magacyaashay la baxaan caalamkan yidhaha waanu horu marnay, ibaaxiyiin iyo calmaaniyiin iyo cilmiyiin iyo fatxul akhlaaq. markan ay ku leeyihiin waxaasoo magacyaa macnaha la xoroobo oo qofku wuxuu doono ha sameeyo ayuunbaa macnahoodu u yahay. yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam wannaaru mahwan lahum. way cunayaanay cabbayaan, waxaanay u cunayaan sida xoolahoo kale. halkaa waxaynu ka faaidaysanay inay u nool yihiin inay wax cunaan. jihaad waxay ugu jiraan inay waxuun cunaan oo ay noolaadaan. laakiin qofka muslimkaahi wuxuu u nool yahay inuu ilaahay sarhaali geliyo caabudo. wamaa arsalnaa min qaryatin buu ilahay yidhi magaalo, wamaa ahlaknaa min qaryatin magaalo maanaan halaagin ilaa walahaa kitaabun macluum. haddaanu halaagnay qoraal la yaqaanun bay leeyihin. maa tasbiqu min ummatin, ummadina kama horu marayso ajalahaa waktigeeda, wamaa yasta'khiruun kamana dib maraya. rabbunaa tabaaraka wa tacaala waxa uu ka warramayaa ummadihii caalamkan soo marayay ee uu qur-aanka kariimka ahi caddeeyey in isbeddel uu ku yimid oo la halaagay. sababtu inaanay ahayn ilaahay oo dulmi uun u halaagay, laakiin horta waxa ay ka gaaloobeen ilaahay, addoonnimadiina way oggolaan waayeen, ergadii rusushana way diideen, asbaabtii lagu halaagayay bay la yimaadeen kolka. markaasaa dabeedna ilaahay ka takhallusayay. waxa labaadaynu aayadda ka faa'iidaysanay halaagga ilaahay inuu ahaa mid xadidan oo ka bani aadamka iyo makhluuqaadka aan la mid ahayn. markay doonaan makhluuqu inay cid wax ka qabtaan, marka u suuro gasho unbay fuliyaan. laakiin kolkay u suuro geli weyda haddana dib bay u dhigtaan. taasi ilaahay waa ka mustaxiil tabaaraka wa tacaala. shaygaa waktiga uu doono ama cadowgaa qabashadiisa goortuu xadito wuu socodsiinayaa. kitaab macluuma bay leeyihin, qoraal cad oo ilaahay agtiisa uu ka og yahay goortuu ka takhallusayo. saa darteed baa ilaahay u yihi ummadi waktigeeda kamana horu kamana dib marto. meeshaa waxa saddexaad aynu ka faa'iidaysanayna hanjabaad baa jirta
ilaahay uu tilmaamayo dadka noocaa hore oo kale noqda wakhtigay doonayaanba adduunyada ha marayeene inay u dhow yihiin saas oo kale inuu ilaahay u qabanayo. waxa afraad aynu ka faa'idaysanaynaa aayadda guud ahaanba baraarujin rabbi baa jirta oo insaankii ilaahay uu ku wacyigelinayo kuna waaninayo التذكير بالأيام الخالية maalmihii tegay in ayaa ilaahay uu ku wacyigelinayaa waxa uu leeyahay taariikhda ka faa'iidaysta iyo waa aragnimada xuna dadkaasi ay kasbeen. dadka noocan ah ee ilaahay waciidka u soo jeedinayo haddaba xaaladooda ka warramay waqaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii quraysheed yaa ayuha aladii nuzila kan lagu soo dejiyey calayhi isaga adikru kan qur'aanka lagu soo dejiyayow innaka la majnuunun waad waalanta. nebi maxamed bay hadalkaa ku leeyihi low maa ta'tiinaa bilmalaa'ika omaad malaa'igta noo keenti ha ku markhaati furtee in kunta min asaadiqiina haddaad ka mid tahay kuwa run sheegaya. ilaahayna wuxuu ihi maa nunazilu lmalaa'ikata malaa'igta sooma dejinayna ilaa bilxaqi halaagun baanu ku soo dejinnaa. wamaa kaanuu manay ahaadeen kuwan hadlayaa idan haddii malaa'igta la soo dejiyo mundariin kuwa loo kaadin lahaa may ahaadeena ilaahay markaaba waa khaarajin laha. waxaa halkan ilaahay uu ku muujinayaa dadka baadilka wada iyo ciddii xaq wadaa in aanay suuro gelaynin inay ama heshiiyaan ama iswaafaqaan. maxaa yeele labada shay ee kala wataanba isu did ah wadidaani laa yajtamicaan. laba shay oo iska hor jeedaana ma kulmaan. sidaa darteed siraaca iyo loolankaasaa jiraya laga soo bilaabo wakhtiga nebiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay u abuuray dabeedna uu ka fallaagoobay sujuuddiisii kaa ibliis lo odhan jiray ilaa laga gaadho nebiyullaahi ciisa calayhi salaam wakhtiga uu dajaal khaarajin doono iyo waxa gaalada ah oo dhan. waa laba arrimood oo midiba uu doonayo ka kale inuu ka takhalluso. jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa. ilaahay baa waxa uu leeyahay xaqiina waa yimid baatilkiina markaasuu tirmay. markaa uu xaqu sugmo baatilkuna meeshuu ka baxaya. haddaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo quraysh ku dhex noolaa ammaanadiisa iyo arrimihiisa gaarkaaba ay yaqaaneen wixii ka ishkaal galana ay uba dhiiban jireen si uu u kala xukumo maxamed abina ay u yaqaaneen baa markuu xaqan ilaahay uu ku soo dejiyey loo nicmeeyey ayay dabeedna bilaabeen hadallada noocan ah iyaga oo leh war kaa sheeganaya in dikriga iyo qur-aanka lagu soo dejiyo waad waalan tahay bay idhaah. waa waali aanay hore u sheegin waa waali imika la abuurayo. sidaa darteed gaalka muslimka caayaya in loo sidiqo ama loo rumeeyo ceeb weyn bay ku tahay qofka muslimka ah. maxaa yeelay ilaahay baa le qad badat ilbagdaau min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar. warbixintii ilaahay baynaa qaadanayn marka. bal malaa'igtu ha ku markhaati furtee keen bay yidhaahdeen. waa sidii faraacinadu ay lahaayeen lowlaa ulqiya calayhi aswiratun min dahab aw jaa'a macahu almalaa'ikatu muqtariniin. nebi muuse yidhaahdeen maa dahab la siiya ama malaa'ig u markhaati furtoo isdaba socotaa ay yimaadaan. intaasoo kun oo sano kadib bay qurayshi sidan ku jawaabtay. intaasoo kun oo sano kadib bay kuwan gaaladiina hadalkii oo kale leeyihin. ilaahayna waxau ihi malaa'ig haddaan keeno waa maraan xaq ku keeno aan halaagayo un cadowga umana kaadiyeen. wamaa kaanuu idaa nazala allahu almalaa'ika mundariin may ahaadeen kuwa loo kaadiyo idaa anzala allahu almalaa'ika. innaa naxnu buu ilaahay yidhi annagu nazalna dikra qur'aankan annagaa soo dejinay wa innaa lahu laxaafiduun annagaana ilaalinayna buu ilahay yidhi. laba arrimood buu halkan ilaahay ku caddeeyey qur'aankan inaanu nebigu keenine oo aanu isagu abuuranine rabbi uu soo dejiyey. innaa naxnu nazalna dikr. waxaa kaluu ku caddeeyey ballanqaad uu rabbi ku ballanqaaday kalaamkiisan inuu ilaalin doono oo sidii tawraad iyo injiil iyo kuwii ka horreeyey wax taxriif iyo tabdiil la idhaahdo iyo isbeddel inaanu ku dhici doonin. waxaa saddexaad oo aayadda aynu ka faa'iidaysanay in uu ka mid yahay asmaada qur'aanka addikr magaca addikru ah. sidaa darteed baa dikri markaa had iyo jeer qur'aanku uu xusayo amaba nusuusta ay ka warramayso qur'aankana uguba horreeyaba dikriga ilaahay iyo xuskiisa kalaamkiisii oo loogu dhowaanayo lagu caabudayo. ballantanna ilaahay waa sugay waana xaqiijiyey oo fitankii dadka muslimiintahaa soo dhex marayay iyo dadkii kala jiidanayay qur'aanka kala daliishanayay xuruuftiisi iyo macnihiisa midba way bedeli kari waayeen. xuruuftii ama dagaaladii kiristanka ee muslimiinta ay kusoo qaadayeen waa lagu bedeli kari waaye. mustashriqiintii isyidhi xarfaha dhex geliya qur'aanka way bedeli kari waayeen. waktigeennan oo gaaladu asaaliib badan ama duulimaadyo badan dhinacyo kala duwan ay gaalada islaamka kaga soo sameeyeen waxba waa laga bedeli kari waaye.
markaa waa ballanqaadkii ilaahay oo rabbi uu xaqiijiyey waana runtii mid mahad weyn iyo nicmo weyn inoo ah ay tahay un markaa inaynu ku camal fallo distoorkii aynu ka dhigana aynu raaci lahayn waxaynu soo aragnay halkaa hore qaybtii suuradda ka warramaysay bashariyadan kuwa ilaahay diiday ee rumayn waayey xumaantooda iyo xaaladooda ilaahay uu ka soo warramay iyo inaanay ilaahay waxyigiisa waxba yeeli karayno rabbi uu damaanad qaaday ilaalintiisa markaa in fara badan buu waxyigu qaybaha bani aadamka iyo kuwa rumeeyey kuwaan rumaynayn uu sheegaa sababtuna waxa ay tahay waa dadka ilaahay ugu talagalay manhajkan inuu usoo dejiyo ile manhajkan ilaahay waxa u keenay in la barakaysto oo la iska akhriyo oo aan lagu camal falin macnuu maaha laakiin lilbashariyati walixayaati albashariya bani aadamku si uu nololihiisa kale liitee jaahiliyadda ugu bedelo waxyiguna uu noqdo kii markaa qaa'idka u noqon lahaa hogaamin lahaa saasaa ilaahay u keenay haddaba ciddii xikmaddaa fahamtay iyo kuwa aan fahminen dhegba u qaadin laba ilaahay agtiisa siman iskuna jiri kara ma aha markaasaa ilaahay uu kala caddaynaya ummadduna in labadaa isku si aanay u arag baa ilaahay uu tilmaamaya haddaba waxa uu rabbi xusay halkaa hore nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalladii ay ku odhanayeen qurayshtu bal rusushii hore kuwii lagu odhanayay baa ilaahay uu ku xidhaya iyagana walaqad arsalnaa min qablik xaqiiqanime hortaa waxaanu dirnay nebi maxamedow fii shiyaci alawaliin ummadihii hore rusulahum baanuu dirnay wamaa ya'tii min rasuulin rasuulna umuu imanaynin ilaa hadduu rasuul u yimaado ummaddaa ka midihi kaanuu bihi yastahzi'uun way ku jeesjeesayeen waanay ku dheeldheelayeen kadaalika sidaasoo kaleaanu naslukuhu istihzaha iyo gaalnimadaa waxaanu gelinay fii quluubi almujrimiin dembiilayaasha qalbigooda laa yu'minuuna bihi rumayn maayaan rasuulkaa waqad khalat sunnatu alawaliin ummadihii hore iyada oo waddadoodii la mariyay ay caddahay oy tagtay ayaa haddana imaan la-aantaa kusii socdeen tasliya la yidhaha tan oo kale shayga markuu qof la kulmo arrini ay la kulanto cid hore oo ay la kulantay oo uu ku dayda ay jirto iyo way kala duwan tahay kolka waxaana isaga ugu horreeya oo markaa hore waxa uu helayaa kudayasho waanuu xusi jirayba nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay nebi hebel ha u naxariistee waxaasaa la soo mariyo markaasuu sabray sabirkaygan mid ka badan siduu nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ku xusayay rasuulku marka ummadaha hore shiyacu waa qaybihii iyo ummadihii hore rusul baanuu dirnay mar kastuu rasuul yimaadana waa lagu dheeldheelaya istihze tahakum iyadoo lagu jeesjeesayo macnaha in aanu rasuul ahayn bay sheegayeen inuu waalan yahay bay sheegayeen inuu gabayaa yahay bay sheegayeen sidaa nebi maxamed ba ilaahay u lahaa innaka la majnuun bay ku idhaahdeen waxaa markaa ilaahay uu ka warramayay ummad kasta oo markaa ummadahan caalamka soo maraya qaybahooda gaalada ahay inuu isku eray kasoo fulayay atawaasow bihi bal hum qawmun taaquun nimanku miyay isu dardaarmeen hadalkan ay ugu jawaabayaan ciddii xaq wadda hadalkan foosha xun ay ugu jawaabayaan miyay isu dardaarmeen buu ilahay isumay dardaarmine waa dad xadgudbaya baa ilahay uhi xumaantii iyo xadgudubkaa qowl midaysan leh sida ciddii xaq wadaaba hadal midaysani uga soo fulo haddaba ilaahay waxa uu yihi xumaanta noocaas waa dadka ayaan darradu ay ku dhacday bay qalbigooda degtaa sida qofka xaqa ilaahay uu ku galladayba iimaanku uu qalbigiisa u dego u iftiimiyo qabashka iyo madmadowga waddaduu marayana uu ka qaado kadalika nasluku fii quluubi almujrimiin markaa nasluku damiirka ku jira waxa ay uu noqonayaa masterka laga fahmay yastahziun istihzaha iyo xumaantaasi waa mid degay oo ilaahay uu geliyay qalbiga mujrimiinta kaasina waxa uu keenay iimaan la-aanta laa yu'minuuna bih bal hadda goortan ay xumaanta qalbiga gashanayaan isla markaana iimaan la-aanta ku sugan yihiin dad ay wax ku qaataan baa ka horreeyay oo waqad khalat sunnatu alawaliina buu lahay ilaahay baa waxau haddaba ka warramayaa codsiyaashan nebiga calayhi salaatu wasalaam ay kolba ka codsanayaan aayad iyo mucjizada ay leeyihiin kee oo keenoo nasiih inaanay taasi ahayn wax runtii loo dhegtaago ama lagu fikiro haddii la siin lahaa talow malaa way rumayn lahaayeen ile kolkii hore yidhahdeen low maa ta'tiinaa bilmalaa'ikati in kunta min asaadiqiin sida aayadda 7 ay sheegayso malaa'igta keen daha ku markhaati fureen oo ha yidhahdeen waa rasuula raace ilaahay baa haddaba waxau ihi walow fataxnaa calayhim baaban
haddaanu albaab u furno kuwan gaalada ah min asamaa'i samada xaggeeda albaab haddii looga ballaqo fadalluu ay ahaadaan fiihi yacrujuuna kuwa kor u fuulaya oo fananaya laqaaluu waxay odhan lahaayeen ay ku jawaabi lahaayeen innamaa sukirat waa la xidhay waana la kala wareejiyey absaarunaa indhahayagii bal naxnu annagu qawmun masxuuruun dad tillan oo sixran baabaanu ahay hadalkaasay odhan lahay dadka muslimiinta ah oo waxba ha ku fikirina baa ilaahay uu leeyahy kuwan guuldarradu ay ku dhacday rumayn la-aantooda ilaa asxaabtu ridwaanullaahi calayh dad aada u jecel bay ahaan badbaadada ummadda markaa mid walo wanaagsanba waxay odhan jireen kan inuu xaqa soo raaco u hiiliyaabuu ku wanaagsanaa waanay ku dadaali jireen sidii u hanuuni lahaa kolkaasaa ilaahay uu leeyahay war kuwa noocan ee ku xiiqaysaan anaa idinka warroon oo idiin sheegaye aayad kasta iyo mucjiso kasta haddii la siiyo cudurdaar kalunbay samaysan lahaayeen waxaa haddaba halkaa ilaahay uu ku xusay caza wajal haddii aayad kasta loo keeno iyo mucjiso kasta oo masalan albaabada samadaba loo furo oy ahaadaan kuwo kor u fananaya markay soo degaana laga waraysto waxay odhan lahaayeen ma inaanu hagaagsanayn baa moodaysaa indhaha iyagii waxay ahaayeen kuwo sakraamay oo isbedelay oo ama la xidhay ama araggoodiiba si noqday waabaanu sixranayn bay leeyihin taana dee waxaba u daliila daliilka waaqica ah ee dhacay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen dhulkan iyo meelahan mucjizooyinkaaga ha kula meeraysanine bal samada u baxoo dayaxa soo kala dilaaci ilaahay u yeel buu markii dabe dayaxii maka hareeraheeda uu ku soo fadhiistay isagoo labaa waxay yidhaahdeen qad wasala sixruhu ila asamaa sixirkiisii dhulkaba wuu dhaafo kor buu u baxay dee tanna waa tiyoo kalow markaa ha ku xiiqina ilaahay baa idinka og laakiin qofka waxa la gudban ama ummadda wanaag wada balaaqa iyo gaadhsiinta way wadayaan hidaayadiisana ilaahay baa leh iyo inuu quluubtooda dejiyo walaqad jacalnaa xaqiiqanime waanu yeelnay fi samaa'i buruujan samada xidigaanu yeelnay wazayannaaha waanu qurxinay samadii linnaadiriina dadka eegayaanu u qurxinay waxafidnaaha waanu ilaalinay min kulli shaydaanin rajiim shaydaan kastoo la nacdalay baanu ka ilaalinay ilaa man istaraqa samca mid xoogaa uu maqlay soo dhufsada mooyaane fa atbacahu dabeed uu ka daba yimaaduu raaco shihaabun mubiin gantaal sidaa u holcaya markuu rabbi ka soo warramay caalamkan fil ard dhulka dhexdiisa iyo awoodihiisa ka muuqanaya waxa ilaahay u gudbay bal inuu wax inaga tusiyo samada iyo waxyaabaha runtii ku xeeran iyadoo mar kalena dhulka uu soo celin doono oo uu ka warrami doono manaaficda faraha badan ee ku jira markaa suuradda waxaynu u galnay qaybtii ka warramaysay al-aayaat alkawniya waa xaashiyahan caalamkaynu kitaabkan aynu ku dhex nool lahay ee kownka la ydhaa aayadihiisa oo insaanka ilaahay uu jeedinayo si uu akriyo ilaa aayado waxa ka muuqanaya caalamkan uu akriyi karo ka qaariga ah ee qoraalka yaqaana iyo ka ummiga ah iyo ka iska markaa saqiirka ah iyo ka kabiirka ah mid waliba uu akriyi karo oo waa waxyaabo u muuqdo oo u baahan un farta in loogu fiiqo loo tilmaamo samadii waxa aan ku sameeyey baa ilaahay yidhi oo aan dhexdeeda yeelay buruuj burjiga waxaa la yidhaahdaa qasrigaa la yidhaha ama fooqa dheere adag aynamaa takunuu yudrikum lmawt walaw kuntum fii buruujin mushayada meel kastaba joogoo qalcado adagba gala ama fooqyo aada u shubanoo geeridu way idin haleelaysa alburuuj tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruuja marka halkan xidigahana waa lagu sheegay oo ay ku fasireen culimadu qaarkood qaarna manaasisha ay xidiguhu degaan baa ilaahay uu ku tilmaamay xidigihii waxa ay baaxadooda iyo weynaantooda ilaahay unbaa og laakiin marka la eego bidhaan ahaan unbay noo yaryihiin innaga xidigihii fawaa'idda loo sameeyey waxaa ka mid a 3 arrimood oo 2 aayadani ay sheegtay inay horta samadii qurxinayaan wazayannaaha linnaadiriin in shayaadiinta gantaale ay ku yihiin ilaahay uu kaga soo celinaya caalamka kore markay sidhaahdaan u gudba waxafidnaaha min kulli shaytaanin rajiim iyo in khalqiga wixii aan markaa dee meel qarfa jooga ama cidlo jooga uu ku hanuuno wabinajmi hum yahtaduun xidigiina way ku hanuunayaan buu ilahay fawaa'idda faraha badan oo ay leeyihiin baa ilaahay uu tilmaamay markaa shayaadiintani inay xagga kore u gudbaan oo is idhaahdaan bal wax ka soo dhagaysta samada kore nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku xusay
oo mustariqiina asamc ayaa la yidhaahdaa. inaa kunaa naqcudu minha maqaacida liلsamc faman yastamic il'aana yajid lahu shihaaba rasada. markii nebiga lasoo diray bay cabanayaan shayaadiintii ama jinkiiyo waxay leeyihiin samada agteedaanu fadhiisan jirnay waxbaanu kasoo maqli jirnay, imikana qofka isku daya inuu wax soo dhagaysto gantaal diyaar u ah unbaaba leefaya. markaa kolkii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam bay sii bateen laguna ilaaliyey. markaa kasidaa wax soo dhagayso gantaalkaasaa ka daba imanaya, ilaahay uu soo diyaariyey. nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay intay kelmad soo maqlaan inay 99 ku darayaan oo 100kaa wada beenta ay u dhiibayaan kii faaliyaha ah. walarda madadnaaha, dhulkii waanu kala fidinay buu ilahay, wa alqaynaa fiiha rawaasiya, buurana waanu duldhignay, wa ambatnaa fiihaa waxaanu ka soo saarnay min kulli shayin mawsuunin, shay wal oo miisaaman oo la miisaamayo. wajacalnaa lakum fiihaa, dhulkii waxaanu idin yeelnay macaaisha waxyaabaha ku noolaataan oo dheefsataan. waman dad khalqina waanu idin dhex dhignay dhulka lastum lahu biraasiqiin, aydaan ahayn kuwa biiliya oonu anagu biilina buu lahayn. halkan ilaahay aayaadna wuu ina tusayaa waana inoo gallad sheeganaya. dhulkii waan kala fidiyey buu ilahay yidhi si aa ugu noolaataan oo u beerataan oo wax uga dhisataan. buurana waan dhex dhigay, waxaan ka soo saaray shay kastoo la miisaamayo oo xikmadda ilaahay isu miisaaman xagga bixitaankiisa iyo midhihiisa iyo manficiisa. ama wa ambatnaa fiihaa, buurihii waxaanu ka soo saarnay wax kastoo la miisaamo, waa dahabkii iyo lacagtii iyo dheefihii. buurahana damiirku wuu noqon karaa, dhulkana waa u noqonaya. markaa dhulkii iyo buurihii dheefo fara badan oo wax la cuno iyo wax lagu shaqaystiyo wax uciyad laga dhigtay intaba leh oo isu miisaaman oo isu dheeli tiran baa ilaahay uu ka soo saaray halkaa. waxaynu halkaa hore kusoo marnay iyada oo rabbi uu ka soo hadlay awoodihiisa dhammayska tiran ee ku saabsan madar uu soo dejiyo iyo abuurka samooyinka iyo dhulka, nabaadka uu soo saarayo, dhulka uu noolaynayo, khalqiga faraha badan ee u arsaaqayo, intoo dhanba tii baa ilaahay uu kasii hadlayaa. weli si gaara wuxuu uga warramay markaa madarka iyo biyaha ka soo baxaya iyo dabaylaha uu kusoo kicinayo. waa arrimo runtii aan la sheegin insaan farageliyo wax awooda ku yeeshay. mahmaa kaanat xadaaratu, heer kastaba ha ka gaadho siday sheeganayaan dadku, taqadum iyo qalab warshada iyo mid kastaba. wa in min shayin buu ilahay yidhi, shay ma jira ilaa hadduu jira cindanaa khasaa'inu, agtayada ayuu ahaaday qasnadaha uu ka soo baxaa. wamaa nunaziluhu, ma soo dejinayna ilaa biqadarin macluum, qadar agtayada aanu ka ognaho la garanayun baanu ka soo dejinaynaa. wa arsalna ariyaax, dabaylahaanu soo dirnaa buu ilahay yidhi lawaaqixa, iyadoo ah mid riminaysa madarkii oo isu keenaysa, biyihiina xambaarsan oo roobkii soo riixaysa. fa anzalnaa min asamaa'i maa'an, xagga koraanu biyo ka soo dejinnay. fa asqaynaakumuu, waanu idin waraabinay. wamaa antum idinku maydaan ahaanin lahu biyaha bikhaasiniina, kuwa dhulka hoostiisa ku kaydinaya ma ihidin, annagaa dhulka hoostiisa gelina baa ilaahay yidhi. wa innaa annagu buu ilaahay yidhi lanaxnu, annagu nuxyii waanu noolaynaa noolahoo dhan, wa numiitu annagaana dilna buu ilaahay yidhi, wa naxnu lwaarisuun, annagaana dhexlayna caalamka waxa ku nool. dadku inaanu majara habaaba ku dhicin baa ilaahay uu tilmaamaya halkan, oo masderka arsaaqada iyo anfaca iyo wixii dheefahoo dhan masderka halkay ka yimaadaan inuu ilaahay yahay, taasaa rabbi dadka uu ku wacyigelinaya. shay kastaba agtayadu ahaaday buu ilahay yidhi khasaa'intiisu, madarkii, arsaaqdii, naxariistii, dembi dhaafkii, waxyigii, shay walba xaggu ka yimaadaa waa xaggayga buu ilahay yidhi. markaa soo dejinayana siiba madarka qadar go-an oo macluumaan ku keenaa. oo siduu cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigaa jaliilka ay lahaa, sanadna sanad kama madar badna buu lahaa ama kama roob badna, laakiin habka ilaahay uu shubayo ayaa kala duwan, oo sanadna meel buu ku badanaya, sanadna meel buu ku yaraanaya. markaa isbeddelkaas oo imanaya awgeed ayaa uu isu bedbedelaya roobkiina. waxaanu soo diraynaa baa ilaahay uhi dabaylihii alriyaax. inta badan qur-aanku marka uu jamaca ku cabiro riyaax waa markaa dabaylahaasi ay tilmaamayaan naxariis, laakiin markay cadaab tilmaamayaan mufrad baa qur-aanku uu sheegaa
riixan sarsara waa sida qaalibkaa wey markaa dabayli waxa ilaahay ku tilmaamay kuwa lawaaqixa talqiixa meelo badan buu galaa oo methal dhirta oo kale kalab intoo laga qaado ubaxiisa ka dhadig la dhex geliyaa dabaylihii waxa ay kuwa daruurihii intay soo kiciyaan sida neecawdan iyo fooraha oo kale iyo ayaa daruurihii isu imanayaan cirkii baa sidaa ku onkodaya waa nicmo wey ilaahay baa ku soo agaasimay dabaylaha isagana soo darariyo salaaxo maraqa ka furay biyihii baa haddana ilaahay uu ka hadlay dhulka yimid afkaanu idinku shubnay buu ilaahay yidhi nicmo aan idin siiye weeyo haddana afkaan idinku qabtay fa asqaynaakumuu eraygaasi siduu muujinayaa waxa weeye inuu inoo sahlay habkaynu u cabbi lahayn gacmihii iyo dhuuntii aad ku cabbaysay iyo imkaaniyaadkii oo dhan buu isagu kuu suuro geliyey arrinka afraad ee aayaddu ay tilmaantay waxa weeye biyii baa ilaahay kaydu ka dhigay bal markaad u fiirsato biyahan waxa insaanu kaydiyaa aad bay u yartay ka ugu weyni waa wax yaroo dhaam lagu xidho ama barkad lagu shubo ama booyad insaanku biyo ma kaydsado xataa dadka taqadumay laftigoodu waa dhaamkaasaa waxay xidhan weyn laakiin ilaahay waxaan sameeyey buu leeyahay al-aaba almiyaah aljawfiya biyahan dhulka hoostiisa ama riigag lagu soo saaro ama wax loo rito kuwaas inay kuwa cirka ka yimaadeen yihiin baa laga fahmaya aayadda dhowaan baana la ogaado arrin dhowaan la helay bay ahayd biyaha dhulku inay ka yimaadeen xagga kore arrin kaleoo ilaahay uu tilmaamay oo qudradiisa ah oo asraarta isagu la gaarka yahuu ogyahay ah alxayaatu waalmawt innaa naxnu nuxyi wa numiitu wa naxnu alwaarihuun faxsi kasta iyo baadhitaan kastaa lagu sameeyey noloshu maahiyadeeda iyo xaqiiqadeeda waa la isku khilaafaa un lama hayo qofku marka uu dhimanayana halka si noqonaysa iyo waxa iska bedelaya la baadhbaadhiyo way suroobi weyn wadnihii baa sidan noqday xubnahanaa kan sidan ah wadnuhu ka dhimanayaa bay yidhaahdeen qofku marka uu dhimanayo dee waxaa la wadnihii hadduu ka dhintay ha laga saaro mid kale wadnihii ha la geliyo haddii la geliyana maxaa u soconaya markaa runtii waa arrin ay garan waayeen caalamka khalqigan ku dhex nool buu ilaahay yidhi arun baa dhexlaya imikaba wuu iska leeyahay laakiin waxaa dhici doonta wakti oo cid kale oo wax sheeganaysa aanay jirin ilaahay mooyaane waa maalinka ilaahay odhanaya liman ilmulku lyawm lilaahi alwaaxid alqahaar maanta yaa wax leh awoodda lahaanshaha yaa leh maanta markaa cidi baa jawaabi waayeyso ilaahay baa waxa uu leeyahay ilaaha kelida ah ee dirqiyaha awoodda la unbaa leh walaqad calimnaa xaqiiqanime waanu ogaanay buu ilaahay yidhi almustaqdimiina minkum kuwa idinka mid ahee horu maraya walaqad calimna almusta'khiriina kuwa dib marayana waanu ogaanaynaa wa ina rabbaka ilaahaagu huwa yaxshuruhum isagaa soo ururinaya khalqiga innahu xakiimun caliim xikmad buu leeyahay wax walba xikmad buu sameeyaa waana mid caliima oo cilmigiisu xeel dheeriyay aayaddu macnayaal dhowra ayaa lagu fasiray oo khalqiga qaybihiisa marka la eego baa ilaahay uu tilmaamaya waxaanay ka turjumaysa aayaddu cilmiga xeesha dheer ee ilaahay uu u leeyahay makhluuqaadkiisan u abuuray waana aqoon iyo ogaansho insaan aan ka suuroobi karin iyo aadamo kale midnaba makhluuq kale markaa mustaqdimiintaasi waa dadkii hore u dhintay mustaakhiriintuna waa kuwa nool ee iyaguna dhiman doona mustaqdimiinta waxaa kaloo lagu fasiray dadka horu socodka ah xagga camalka saalixa ah mustaakhiriintuna waa kuwa dibu socodka ah dadka qaar baa kuwa adeecana horu socod ku sheega kuwa diidana dibu socod sida shuuciyadii oo kale dibu socodkaasi cagsi buu ahaa oo ka iyaga ka gaabiya horu socod ahaa runtii ilaan baatil bay wax ku wadeen laakiin rabbi baa tabaaraka wa tacaala halkan waxa uu ku xusayaa qofka ilaahay camalkiisa ku horu mara wa fii daalika falyatanafas ilmutanaafisuun ee tartankiisu uu yahay mid uu ku dheereeyo waa qof mutaqadima kan kalena waa mustaakhir liman shaa minkum an yataqaddama aw yata'akhar ayadaasi isku macnay waxa kaloo lagu fasiray marka cadow la dagaalamayo rag la isayo cidda safka hore dagaalka ku horumaraya iyo kameeraysanaya ee xeeladaysanaya dib u baxaya haddadow labadaas ilaahay iskagama jiraan ogaada macnayaal kalena waa lagu fasiray kuwa ugu mashhuursan bay kuwaas ka mid yihiin ilaaha haddaba insaankaa isqarinaya mid horu tallaabsaday iyo mid dib u dhacayba ogsoone ka warhaya sidee buu wax kale uga qarsoomi karaa bicilmi wa biqudrati ayaa dabeetana uu kusoo xashrinayaa maalinka qiyaamaha xikmad baanay taasi tahay
cilmigiisii iyo xikmaddiisii baa wada socda ma suurowda ama ma dhacda insaanka in xikmad iyo cilmi wuxuu fulinayo dhamaystiran u yeesho walaqad khalaqna alinsaana bani aadamkii waxaanu ka abuurnay buu ilahay yidhi waa nebi aadame aadam waxaanu ka abuurnay min salsaalin dhoobo qallalan min xama-in oo dhoobo madow xaggeed ka timi dhoobada madow oo masnuunin isba beddeshay waljaanna jinka aabbihii oo ibliisana khalaqnaahu waxaanu ka abuurnay buu ilahay yidhi min qabl aadam ka hor min naari samuum naar qaatilahoo wax dilaysa oo holcaysa halkan waxaa ilaahay uu inagu siinayaa taariikhdii abuurka bani aadamka oo saxan oo aan laga shakiyeyn fikraddii markaa waxaa halkan ku buraysa oo ka baxaysa darwin ninkii la odhan jiray gaalka ahaa yahuudiga ahaa uu tilmaamayey bani aadamku inuu xayawaan ka yimi inkastoo iyaga laftigooduba ay buriyeen markii dambe gaaladu oo ay tilmaameen fikraddaasi inay fashilantay waxaynu halkaa ka faa'iidaysanaynaa tajaaribka iyo aragtiyaha gaaladu ay yidhaahdaan waanu soo kordhinay inteeda badan inay baatil tahay oo dee innagaaba arkaynaba wax badan ay isku burinayaan markaa midhka mudan in aynu raacno ku adkaysanno aada u aaminno waa ka waxyigu uu sheegayo gaar ahaan wixii ku saabsan waxa tegay iyo waxa soo socda ilaahay waxau yihi aadam waxaan ka abuuray dhoobada noocyadaa leh halkan waxa uu ku sheegay 3 nooc salsaal alxama almasnuun dhoobadani waa dhoobo maraaxil maraysa qur-aanku meelo kalena turaab iyo tiin buu sheegaa aayaduhu iskama hor imanayaana way iskaamil yeelayaan marka hore ciid buu ahaa waa la qoshoo tiin bay noqotay waa la dhigay dabeedna markaasay xama noqotay oo midabkeediibaa isbedelo madow noqday alxama waa midabka madow masnuunna waa urteedii oo isbedeshay weeye marka way sii engegtoo salsaal bay noqotay waa waqtiga aayadda kale ay sheegaysay ee rabbi uhi khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar dhoobo qallalan oo tadharig oo kalaa baa laga sameeyey waa waqtiga aayadda kale ilaahay uu ku sheegu leeyahay hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura nebi aadam waxa soo maray waqti oo aanu ahayn wax la sheego dee waqtiga dhoobadaa u ahaa wey innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih ubadkiisiina nudfadaa iyo candhuuftaasuu ilaahay ka abuuray marka asalkii bani aadamku cunsurkaa turaabkaabuu ahaa turaabkaasuu ku dul noolaanayaa isaga dhexdiisu gelayaa isagaa laga soo saaraya cunsur ay islaasimayaan wey waxyaabaha uu ka kooban yahay insaankuna wax badan oo ka mida uu ka shabahaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa malaa'igta nuur baa laga abuuray kaajinka la yidhaahdana naar aadamna dhoobada uu qur-aanku idiin sifeeyey jaankaasina waa ibliiska la yidhaahdo oo aabbaha jinka iyo shaydaanka wey naartan samuumka ahi waa naar aada u holcaysa oo masaamida jidhka meelaha daldaloola gelaysa dabeedna karaamo iyo dheeraad maamuus ahoo uu siiyey nebi aadam ayaa halkan ilaahay uu ku xuso rabbi waxau idhi waid waqti xus qaala rabbuka lilmalaa'ika malaa'igta ilaahaguu ku yidhi innii khaaliqun basharan bani aadam baan ka abuurayaa min salsaalin dhoobo qallalan min xama-in masnuun oo taa isbedeshay ah fa idaa sawaytuhu marka aan sameeyo ee aan dhammaystiro wanafaqtu fiihi min ruuxii ruuxdaydana aan ku afuufo faqacuu lahu saajidiin dhammaantiin u dhaco u sujuuda fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'igtu sidii u dhammaayeen way u sujuudeen ilaa ibliiska la yidhaahdo mooyaane abaa wuxuu diiday an yakuuna maca asaajidiin dadka u sujuudaya aadam khalqiga u sujuudaya aadam inuu raaciyo waa diiday isagu bal waqtigaa nebi maxamedo xus oo ka waran markaa waxaa laga faa'iidaysanayaa karaamada ilaahay uu siiyey insaanka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa cadaawaddii ibliis halka ay ka soo bilaabantay waxaa kaloo uu tilmaamayaa nasku aynu ka qaadanaynaa taariikhda saxan ee abuurka insaanka ku saabsan oo ilaahay uu noo qayaxayo malaa'igtu sidaa u ogeysiiyey si ay ugu diyaargaroobaan sujuudda aadam bani aadam dhoobo aan ka samaynayo waa jidh aan dhoobo ka samaynayo ayaan abuuri doonaa buu ilaahay yidhi waxaynu halkaa ka faa'iidaysanay awoodda ilaahay inaana wax cajsi gelinaya aanu jirin kol haddii uu aabbo iyo hooyo la-aantood aadam ka soo saaray ciiddaa markaan isku simee aan ruuxda ku afuufo u dhaca buu ilaahay yidhi sujuud kol haddii layidhi loo dhaca u dhaca mar haddii layidhi dee waa fooda dhiga macnaheeduna maaha in markaa madaxa ay yaro fooranayaan waa inay fooda dhigayaan sujuudduna sujuud cibaado maaha waa mid maamuusa malaa'igtii sidii bay qisadii nebi aadan baynu kusoo jirnay calayhi salaam markaa waxaa ilaahay uu ka soo hadlay nebi aadam inay malaa'igta u sujuudeen kolkii ilaahay u amray
laakiin kaan nacdashu ay ku dhacday ibliis la yidhahdaa isagu waa diiday oo rabbi baa ka warramay inuu kasoo horjeedsaday sujuudda ilaa ibliisyo kolka la yidhi istitnahaas waa munqatic macnaha kamuu mid ahayn iyaga kaana min aljin ayaa ilaahay waraw tilmaamay inuu markiisa horeba jinsigiisu ka duwanaa waxa isweydiin le qof haddii la yidhaha waxaa ma yeelin talow muxuu u yeeli waayo ma cudurdaar buu haystay miyuu maqnaa ilaahay baa tilmaamay inaan wax cudurdaari jirin aba an yakuuna maca saajidiin inuu kuwa sujuudaya ku darmo uu iska diiday ilaahay baa weydiiyey waxau ihi qaala yaa ibliis maa laka maxaa kugu kalifay allaa takuuna inaanad noqonin maca saajidiin kuwa malaa'igtan sujuudaysa inaad la sujuudi weyda maxaa kugu kalifay qaala markaa ibliis waxau ihi lam akun mayhi liasjuda libasharin bani aadamuma fooda uma dhigaya buui khalaqtahu aad ka abuurtay min salsaalin dhoobo engegan oo min xamayn masnuun dhoobo isbedeshay oo madow xaggeed ka ahaaday waxa uu noqday ninkan ibliis la yidhaahdaa su-aal buu ilaahay weydiiye wuxuuhi maxaa kalifay inaad diiddo sujuudan dabeedna waxa uu noqday ninkii ugu horreeyey iskibriyey dee aadam waanan u sujuudayn buuhi kol haddaad dhoobo ka abuurtay kii ugu horreeye ku dhaqma cunsuriyadda iyo isku sheegga waxaanu ahayn isaga ayaa u horreeyey xaasid buu u horreeyey sidoo kale waxa uu horreeyo afraad dadka daliilka iyo caqliga horraysiiyana waa u horreeyey oo dee waxa uu leeyahy ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anigana naar baad iga abuurtay isagana waxaad ka abuurtay aadam dhoobo labadayada maadaa kala wanaagsan qiyaaskaasi wuxuu keenayaa faadilku inaanu u sujuudin mafduulka ka dheeraadka lehi ka uu ka dheeraadka leeyahy inaanu u sujuudin waa qiyaas maca nas baa laydhaha iyadoo ilaahay uu leeyahay u sujuuda aadam oo amar uu bixiyey ayaa isaguna uu wadaa hadalkan oo uu keenayaa markaa caqliga la keeno iyo falsafada la keeno maca daliilka iyadoo ka hor imanaysa daliilkaa laga qaadanaya waa laga tegaya haddaba halkaa cadaawadiisu inay kasoo bilaabantay xumaanta noocaasana arrinkiisu ahaabaa ilaahay u xusay waa inaynu ka faa'idaysano awgeed baa ilaahay uu noogu sheegaya qaala markaa rabbi waxau ihi fakhruj minhaa ka dhex bax malaa'igta fa innaka rajiim marjuum baatoo waan ku fogeeyey buu ilaahay yidhi wa ina calayka allacna cadhadaydana dushaan kaaga tuuray buu ilaahay ku yidhi ilaa yawmi ddiin ilaa dharaarta khalqiga la abaal marin doono ibliis baa hadloo qaala waxau idhi rabbi faandirnii ilaahayow ii kaadi ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinka lasoo noolaynayo qaala markaa ilaahay waxau ihi fa innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka mid tahy ilaa yawmi alwaqti almacluum waktiga la garanayo maalinkiisa jeeroo la gaadho amarka ilaahay oo la diido iyo addoonnimada oo laga fallaagoobo fashalka iyo xumaanta ka imanaysa halkan ilaahay uu ku caddeeyey markaa ibliis amar baa ilaahay uu siiyo ka dhex bax buuhi minha samada malaa'igta jannada minhaadu saddexdaba waa loo celin karaa dhaaf baa ilaahay uhi meel kasta oo mukaram ahayd oo wanaagsanayd oo joogtay dhaaf nacdal baanaan dusha kaaga tuuray ilaa qiyaama ibliis waa garanayaa ma diidana inuu ilaahay ilaah yahay kii abuuray yahay dabeetana codsi buu ilaahay weydiistay oo waxa uu leeyahy rabbigayow baa buuhi halkay fircoon iyo gaalada qaarkood ilaahay ka diidan yihiin amaba ay leeyihin wax walba dabeecadda abuurtay ibliis waxa uu leeyahay rabbii baa buu leeyahy ilaahaygiyow waxaan kaa codsanayaa ilaa maalinka lasoo saaraya inaad idayso codsigaa ilaahayna waa ka yeelay ilaa yawmi alwaqti almacluum ilaa waktiga la garanayo oo ah ay mufasiriinta ku sheegaan ilaa waktiga suurta la afuufi doono hore ilaa waktigaasaa lagu daayay baa ilaahay uu ku yidhi marka ilaahay xikmadiisaa taa keentay xikmadda rabbi iyo qadarkiisaoo sidaa keenaya awgeed ayaa ilaahay codsigan uga aqbalay oo midhka meesha ku jiraa waxa uu yahay addoommaha adduunyadan usoo baxaya ee duriyadda bani aadama sida halkan dambeba aynu ku arki doono ayaa ilaahay uu ku kala shaandhaynayaa dhexboodkan ibliis uu dhex boodayo oo kii isaga calankuu taagtay dabagalana dee waxa uu la gelayaa naarta oo uu kula arooraya kii ka soo hadhana dee ilaahaysuu ku xidhmaya ee rabbigiisaana abaal marinaya markaa si addoommaha loogu ibtileeyo oo ay ugu kala baxaan bal qofka naftiisa ka adag iyo ka kale baa ilaahay markaa u daayay ibliis baa haddaba hadloo ballan qaaday adag cadaawadna ku muujisanayo aanu qarsanayn
qaala markaa ibliis waxau ihi rabbi ilaahaygiyow bimaa aqwaytanii hallaynta aad i hallaysay awgeed iyo nacdashaadi nacdasho awgeed kol haddaan sidaa u halaagsamay la usayinanna lahum fi lard dhulkan u qurxin doonaa ilmo bani aadam wala uqwiyannahum ajmaciin dhammaantoodna waan wada lumin doonaayo karkaakaan weydaarin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommahaaga iyaga ka mid ee wanaagsan ee adiga lagu saafi yeelay mooyaane sidaasuu ballan ku qaaday ilaahayo waad ilumaysay buuli halkan aafo weyn baa igu dhacday haddaba taas sababteeda waxaan u arkayaa buu leeyahay in aadam ay tahay sujuuddaan aadam u sujuudi waaye ubadka aadam uu dhalee ka soo baxaa siday u dhan yihiin waxalala waxaan teello u dhiganayaa ma jiro lug iyo farasba waan u fuuli doonaa waanaan lumin doonaa dhammaantood inta addoonnimadaada ogolaato oo dee aanan awood u lahayn inaan jiidho mooyaane halkaa waxaanu qarininba silaaxa uu isticmaalayo iyo qalabka uu u adeegsanayo ilmo bani aadam markuu la fuqayu karkaarka weydaarinayo waa tasyiin fi lard dhulkoo uu u qurxiyo wey markaa wax wal oo faldembiyeedahoo insaanku uu ku tallaabsanayaba wuu u qurxinaya hadday dil tahay wuu u qurxinayaa wuxuu leeyahay xumaantaasaa lagugu sameeye ka aargooso markaasaad sharafna yeelanaysaa nasanaysaana hadday xaaraan tahay sine ah ad waxaan ku raaxaysatid buu leeyahay samee haddii sidoo kale ay tahay dulmi iyo xoolo bani aadam uu qaato aad ka xoolaysatid ood hanti heshide oo dadka xoolahana noqotide sidaa iyo sidaa yeel buu leeyahay waxa uu qurxinayaa oo kale mustaqbalka dambe waxa uu leeyahay ilaahayna waa qafuururaxiim oo uu kaa dhaafi doonaa yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura sida ilaahay aayaddaa uu ku yidhi wuu u ballan qaadaya shaydaanku bani aadamka yididiilana u gelinaya laakiin waa quruur iyo kadisuun silaaxiisi iyo hobkiisii waa kaa dadka dhammaantood ku luminaya sidaa darteed baa insaanku wuxuu ordo oo faldembiyeedkaa uu geystaba marka arrinkaasi uu ka dhacu farta dhexda ka qaniinaa qofkaas waxa markaa waktiyaasha uu fulin karo hawsha noocana waa cinda alghadabi waalhawaa ataleerigiisa wuxuu ibliisku ku ridaa insaanka markuu insaanku aada u cadhaysan yahay iyo markuu aada wax u jecel yahay labadaasuu ka faa'idaystaa sidaa darteed buu nebiguna calayhi salaatu wasalaam ummadda u laqimayay hubkaa uu soo ridaya kii laga horgeyn lahaa lagu burburin lahaa markaasaa waxa uu lahaa marka midkiina cadha ay qabato isticaadada ha ogaado ilaahay baa addoonka ilaahay baa shaydaankan soo diray oo dee waa kalbi iyo ay uu isagu un qaban kare ilaahay ha ka dayrto ha ka magan galo ha yidhaahdo acuudu billaahi min ashaydaani arajiim maalimuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin intuu cadhooday indhuhuna casaadeen xididada cunuhuna kareen markaa wuxuu lahaa waxaan ogahay kelmad ninkaa hadduu ku dhawaaqi lahaa daaweyn lahayd uu ka jabi lahaa xumadaa ku kacsani acuudu billaahi min ashaydaani arajiim isticaadada hadduu la iman lahaa sidaa darteed baa qur-aanka kariimkaa markuu qofku akriyayana ilaahay uu leeyahay isticaadada la kale acuudu billaahi min ashaydaani arajiim sidaa leh waa tilmaan nabiga kasoo fulaysa calayhi salaatu wasalaam oo xaqa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommahaaga saafigaa ilaahay uma dhowaan kara buuli waana runtiiya kuwaa ma mari karo oo dee ilaahay baaba ballan qaaday inaanu agtooda mari karayn qaala ilaahay baa waxau yidhi haddaba haadaa jidkaa mukhlasiintu ay marayaan siraatun mustaqiim waa waddo toosan oo calaya an uraaciya dushaydana ay tahy inaan ilaaliyo ina cibaadii addoommahayga wanaagsan laysa laka calayhim sultaan adigu awood kuma lihid aada ku kaxaysan karto ilaa man itabacaka cidda ku raacdo oo min alghaawiina kuwa hallowsana mooyaane kuwaasunbaad kaxaysan kartaa ismu ishaarahani waxa u noqonaya haada waa siraatu lmukhlasiin dadka wanaagsanaaday ee cibaadada ilaahay ku fiicnaaday sababtay la fiicnaadeen waxa weeye siraadkii ilaahay iyo jidkii rabbi uu jeexee rasusha ay marayeen bay soo mareen haddaba jidkaasi calaya an uraaciya midaan isku laasimiye weeyaan buu ilaahay leey inaan ilaaliyo addoommahayga oo wanaagsanna sultaan kuma lihi waswaaskaagu ma marayo tasyiinkaaga iyo qurxintaadu ma marayso cadho kagama faa'iidaysanaysid wax ay jeclaadeen naftooda way ka qabanayaan oo kagama faa'iidaysan karaysa laakiin kuwa hallaabay dee waad heli kartaa buu ilaahay leeyay
kuwa qaawintii halaabuu leysku kaxaystay abaalmarintooda ilaahay mukaba wuu sii sheegay cid kamuu qarinin oo waxa uu yidhi wa inna jahannama naarta magacaa la yidhaahdo jahannama la mawciduhum ajmaciin kuwa halaabay dhammaantood waa meel loo yaboohay oo ay ku kulmi doonaan lahaa 7 abwaab 7 albaab bay naartaasi leedahay likulli baabin albaab kasta waxa u sugnaaday juz'un maqsuumun qayb la soo cayimay oo minhum gaalada ka mid ah ayaa albaab walba ka galaysa naar baan u diyaariyey buu ilaahay yidhi magaceeda jahannamo la ydhaa waxa ilmo ibliis ama xerta ibliis noqdo oo dhammina way raaci doonaan oo halkaasay gelayaan aan idinba sii sheega dadka gelayaa way fara badan yihiin 7 albaab bay leedahay baa ilaahay u leeyahay albaab walba juzun maqsuum qayb cayiman oo gaalada ka mid ah baa ka galaysa oo iyaga laftigoodii baa kala nooc ahaa ila shirkiga iyo gaalnimadii iyo xumaantii baa kala nooc ahay marka noocyadooda kala duwan qooba albaabay ku xaroonaysa oo ay ka galaysa culimada qaarkood waxay ku fasireen ama asxaabta ridwaanullaahi calayhim qaarkood in albaabadaasi ay yihiin dabaqaad oo jaranjarooyin naartu ay leedahay weeyaan ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar sida ilaahay baa aayaddaa uu ku sheegay in munaafiqiinta u hoosaysa ay gelayaan ilaahay baynu ka magan gelaynaa naarta xaqiiqatan ilaahayna waa inooga digay ibliis iyo xumaantiisa iyo cadaawadiisu haddii ay soo bilaabantay marka addoonka intaa ku wax qaadan waaya waa mid halaagsamaya darisku halkaa inoogu jooga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh